meesha hadda aan joogno waa xarunta Pizza House oo musiibo ay ka dhacday laba cisho ka hor sidaad aragtaan wujuudan quruxda badan ee dhalinyaradan halkan isku xilqaamay waxay u taagan yihiin in ay nadiifsadaan goobtan sidaan ognahay waxay ahayd goob dhalinyaro oo fikir badan oo laga heystay magaalada bedeshay meelaha qurux badan oo loo soo nasasho tago ardayda jaamacadaha dhalinyarada magaalada carruurta iskuulada aada meel isugu yimaadaan ahayd marka waxaan rabnaa walaalihii fikirkan quruxda badan lahaa meeshan noo sameeyay quruxda badan inaan la taaganahay garabkooda nahay nadaafadii maanta aan kala qayb qaadanayno waxaan rajeynayaa insha Allah inaan dhismahana kala qayb qaadano hadduu Ilaahay yiraahdo Pizza House oo ka qurux badan Pizza House la yaqaan inay dib u soo noqoto taa waxay cadeen u tahay dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed inay diideen in is dhiibaan taasna waa astaan u gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo intaas oo san dhibaato ku soo jirtay haddana wali diyaar u ah rajo iyo muxuu ahaa dhiiranaan iyo kalsooni wali ku shaqeynaya marka waxaan rajeynayaa insha Allah maanta sida u jeedo qofka maqan mala dhalinyarada Soomaaliyeed ee halay kuwii iskuulada jaamacadaha dhalinyarada iyo shaqaalaha dawladda ahaa marka ma sha Allah aad ugu faraxsanahay washa marxin magacaygu waa Muno Xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada maanta waxaan joognaa xaruntii Pizza House dhibaatada iyo musiibada ay ka dhacday ummadda Soomaaliyeed runtii waa uga tacsiyeynaa musiibada ka dhacday meeshan Pizza House ma ahayn meel qamri lagu cabo ma ahayn meel faqsi ka jiro ma ahayn meel shiishad lagu cabo meel ummadda lagu dhibaateeyo ma ahayn waxay ahayd meel dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu timaado isla markaana ay isxilqaameen dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanku wax ku baratay ee wadanka aanan ka bixin inay dhalinyarada kala helaan meel ay ku sheekaystaan ku qaxweeyaan isku xaq wareystaan isku warbixinada ku kala qaataan marka nasiib darro waaye in meelihii dhalinyaradii isxilqaamtay ee kummi ku dar maxaa haysaa iyo intaanan hayaa ku dhistay meel lagu nasto in loo arko meel ummadda lagu dhibaateeyo inay tahay dhibaatada noocaan ay ka dhacday ma istaahilaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ku soo barbaartay ee dhibaatada wax ku baratay in dibkan loo geysto marka annagana waxa u taaganahay meeshii shalay dhalinyarada kala dumiyeen inaan maanta dhisno waana garab taaganahay dhalinyarada Pizza House ee isxilqaantay iyagu dhabarka u xirtay inay soo nooleeyaan bilicdii in la helo dhalinyaro meel ay ku kulanto waa dhisaynaa haddii dhalinyaradu ay dumiyaan waxa dumiyay waxa aaminsanahay inay tahay dhalinyaro innaga oo dhalinyarana waxaan u taaganahay inaan dhisno marka ummadda Soomaaliyeed message-kan u dirayna waxay tahay aan ka wada qayb qaadano anna isxilqaan aan muujino wadankan innaga iskale maalin walba haddii la burburiyo maalin walba la dhibaateeyo dhalinyaradii la baabi'iyo waxay noqonaysaa meel eber laakiin innaga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradu istaagtay wadankan inay rajadooda soo celiyaan ma ka quusan doono waa taagnaanayna insha Allah وانا ما سنتي يونيفرسيتي
بسم الله مقعي وحسن مال حسن ما أنت سأوجد أن وحأتاجنا هاي إن نسوي لنا بلعلي إلى هاد بيس هاوس تاسو سعر حندرة ورين حالنا هاي دنيا أنا كان واقفين ما نكني جبنا إن نسوي لنا بلعلي بيس هاوس تيفيقنا فرصة لو كنا هتسين هاي ما شقي بقشة ولا صاب واقضي ورئيسة محرجين إن شاء الله بنيرد أنت جوهنا أسحل قامة قف كستو وحيق بكرت إن على كقبض si aan u soo celino bilicdii iyo nasiinadii aan ku haysan Bees House kulligeen waxaan nahay Bees House family waan ka shaqeynaynaa waana soo celinaynaa bilicda si kastoo loo dumin insha Allah waxaan u taaganahay inaan bilicdeena soo celino 10 mar haddii xataa ay wax ka dhacaan salaam بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وزكري محمد بيتالي كان السعودة أورك دلنيرة سومالي يوز أكتيفيست ماشان waxaa u maanay inaan ka qayb qaadano soo celinta inaan ka qayb qaadano olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicdii Bees House maadaama meeshaan musiibo ay ka dhacday dad Soomaaliyeed aan waxba galabsan oo shacab ah wax ku gaareen sidaa darteed waxaan dhiirigelinaynaa dhalinyarta Bees House businesskan magaalada ku soo kordhiyay magaalada meeshii labaad loo nasiino tigi jiray ay tahay sidaa darteed inaan ku soo celino oo aan dhiirigelino inay dib u bilowdaan howlahoodii aan hil iyo hooba aan la garab istaagno intaas ayaa maanta u nimid intaan dhalinyaro ah maantay oo iskaa wax u qabso ugu imaatay si u dhiirigeliyaan dhalintaan magaalada ishaag businesskan ka sameysay waxay ahaayeen dhalinyaro isku tagtay oo wax baratay ay ahaayeen oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan ishaag oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan wax la inay ku soo biiriyaan oo shaqo abuur ka bilaabaan bilicda magaalada soo celiyaan adiga qaybo badan ay ka shaqeynayaan dhalinyartan aad u maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد حسين حسن وحنا قدوميها دلنيرada caasimada waxaa maanta ka soo qayb galnay olole ballaaran oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed isku timid in ay ka shaqeeyaan Bees House maadaama ay meel xarun dhalinyaradu ay leedahay oo dhalinyaradu ay ku nasato Bees House waxaan leenahay ma aysan ahayn xarun dawladeed ma aysan ahayn xarun muxuu ahay shakhsiyaad gaar ah leeyihiin oo dana gaar ah wadan kale waxa uu istaagay meeshaan hadda maanta aan joognay burburkan ka muuqdo dhalinyaro Soomaaliyeed isku xilqaamay waxay u istaageen inay business ka sameeyaan waxay u istaageen wadankooda inay meel qurux badan ay ku sameeyaan boqolaal dhalinyaro ayaa imaan jirtay meeshaan waxay noqotay meel markaan aan maqalnay in dhibaatadan ay ka dhacday dhammaan dhalinyarada murugo ayay ku beertay maanta marka waxaan u taaganahay in aan iskoobayaasha iyo fargeetayaasha aan wadanaa in aan qashinka iyo wasaqda ka qaadno in aan walaalahan garab istaagno insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ballan qaadayaan in ay Bees House ay garab taagan yihiin wax walba oo karaankeenana aan la qaban doono hadii Ilaahay Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Haweyd Ismaaciil Axmed waxaan maanta u imaanay Bees House anagoo ah dhalinyarada si volunteer oo customer u ahay bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Haweyd Ismaaciil Axmed waxaan halkaan u imaanay Bees House si yani si volunteer wax ugu qabano iyadoo shalay yani burbur zaid soo gaaray maanta dhalinteeni magaalada Muqdisho ma jeesto ma sha Allah maanta sida arkay guul ayaa leeyahay dib iyo dheefna waa la qaybsan doonaa Bees House سؤال مرتين إنه ويدي سمو سوا أنا في أوكي meeshaan sida aad ka warhaysid waxa ka dhacay dhibaato weyn ka dhacday maalmo yar ka hor dad badan waxa ku soo gaaray burbur badanna uu soo gaaray xaruntan ganacsi ee Bees House laakiin sida la sheego wax kasta oo dhaco sabab wanaagsan ay u dhacaan si kale markii loo fiiriyo wax kasta oo dhaca xigmada ku jirta la yiraahdaa xigmad ilaahiya ku jirta in kasta laga yaabo mararka qaarkood inaanan anagu xigmadaas fahmin xigmada meeshaan ku jirtay waxa ka mid ah sida ay dadku soo gurmadeen dadkii dhalinyarada ahaa ee macaamiisha ahaa ee ku xirnaa meeshaan iyo dadkii kale ee yaqaanay maqalkeeda iyo muuqeeda meel kale ka arkay kulli way soo gurmadeen waxa shaqeynaya maanta waa dadkaas oo si volunteer ah ku shaqeynaayo oo iskood wax u qabso ku shaqeynaayo oo maaragtay annagana niyadeena dhistay si aad iyo aad maxay yeelay markay dadka dad badan oo wadar ah ay wax ka dumaan si wadar ay wax u dhistaan haddana laakiin waagi hore waxa dhici jirtay dhib markuu dhaco qof kaliya ku dhacaya qofkaas kaliya la gubanayo hadda marka waxa bilaabatay in dhibka dhacay oo nagu wada dhacay qofkii meesha joogay kii meesha kulahay kan kulahayn kii ka maqnay kulligan dhibku nagu wada dhacay inta naga dhimata Allah u naxariisto laakiin waxaan isleeyahay
qadarta ilaahay ayadana wax la baajin kara maaha annaga soo hadda waxa yiri diilada leh waxa magaalada Muqdisho ka bilowday ah inay dadku isu gurmadaan meeshii duntay ay rabaan inay dhisaan ayagu dhisaan qashinka iyo burburka yaalana ay xaqayaan gacmooda ku xaqayaan marka waxay noo noqotay dhiirigelin weyn ay noo noqotay inta badan waxa waaye qof kaliya wax ka halaagay laakiin hadda bulshada wax ka halaagay